waa mar kale iyo barnaamijkeeni dunida xogta dunida ku soo dhawaada saaxaabta qaaliga maanta oo ay taariikhdu tahay 20 bishii February qodobadan ku soo qaadanayna waxaa kamid ah wararka iska soo taraya dagaalka Ukraine iyo Russia oo Trabel ah Mareykanka oo walaac ka muujiyay colaadda marna inuu Putin joogo jidnoonin China oo ku soo biiray dhexdhexaadinta sida colaadda lagu joojin lahaa iyo qodobo kale oo muhiim ah dalka Mareykanka ayaa maanta guddigiisa amniga isugu yimaadeen shir degdeg ah kaas oo ay kaga arrimsanayaan xaaladda colaadeed ee ka taagan Ukraine kabacdi markii ay soo baxday gobolada Donbass shacabkii ku noolaa in ay u qaybsameen laba qaybood qayb u qaxdo qaybta taageersan dalka Ukraine oo u baxay intooda badan u qaxay xagga iyo magaalooyinka waaweyn ee Ukraine halka kuwa kale taageersan ay u qaxeen dhinacaas iyo Russia magaaladii Donbass iyo Lugansk ayaa isku bedeshay goob ciidan xagaasoo intooda badan ay ka muuqato colaadaha iyo taangiyada dagaalka ay hoganayaan sida daraadeedna waxaa jirto in ay taladu marba mar ka dambeysay u sii dhawaanayso dhanka iyo colaada madaxweynaha Faransiiska oo xil dhaweed gaaray Moscow ayaa sheegay in uu ku isfahan ka gaareen in dagaalka dib loo dhigay isla markaana xaaladda wada hadalka miiska lagu soo celiyo madaxweynaha Faransiiska ayaa muujiyay in uu Putin diyaar u yahay inuu wada hadallo waxtar la galo reer galbeedka dhanka kalena waxaa jira in colaadda iyo tijaabooyinka gantaalaha continental missiles-ku ay sii kordhayaan ayadoo wadamada qaarkood ay soo wadamada qaarkood walaac xoogan ay ka muujinayaan Ruushka ayaa ku tala jira sidii u xoojin lahaa tababaradiisa faraha badan ee uu siinaya ciidamada iyo tijaabooyinkiisa gantaalaha dagaalka iyo diyaaradaha sidoo kale taangiyada ayaa u sii qulqulaya dhinacaas xuduudda Ukraine ayadoo gantaalaha plastic iyo kuwa plastic isaga gudba qaaradaha iyo kuwa ridada dhexe iyo kuwa kale oo istiraatiijiyada iyo difaacyada gantaalaha lagu sii gurayo gobolada bari ee dalka Ukraine dhanka kalena waxaa jira in dalka Ukraine loo arkay in dalka Ukraine gabi ahaanba isugu jira difaac kaliya halka Russia ay u muuqato wadan duulaana hor u socodana isla markaana Ruushka ayaa intiisa badan waxa uu la wareegay gobolada bari ee dalka Ukraine ayagoo aqoonsaday in ay yihiin jamhuuriyad gaar u taagan dhanka kale waxaa jira in diyaaradaha iyo maraakiibta iyo helikobtarada ay si darandoori ama si joogta dowladda ciidan oo kala duwan ugu sameynayaan qaybaha kala duwan ee dalkaasi China ayaa bilaabay dhaqdhaqaaqyo diblomaasiyadeed kaasoo doonayo inuu ku dhexdhexaadiyo Russia iyo reer galbeedka colaadda ayaa marba mar ka dambeysay soo tarayso xaaladuna waxay